waxaan ku salaamayaa magaca rabbiga iyo badbaadiyaha masiixa. Waxaan maanta rabaa inaan sii wado hadalladii cajiibka ah oo ku qoran kitaabka injiilka Matayos, wacdigii buurta cutubka 5, 6 ilaa 7. 5 waa soo dhammaynay, cutubka 6 wuxuu noo marayay kala bar, ilaa iyo cutubka 7 ayuu wacdigii buurta oo rabbiga masiixa ah, ilaah qaadirka ereygiisa uu wax walba ka abuuray 2,000 sano ka horna uu dunida u soo diray si uu dembi dhaaf ugu noqdo dadka aadanaha dembaabay, aadanaha oo dhan inta asaga aqbashay oo rumaysay. Marka masiixa markii uu dunida yimid, ereyga eebbe oo weligiis jiray, oo ilaahay wax walba ka abuuray, ilaahay wax walba uu abuuray wuxuu ka abuuray ereygiisa. masiixa waa ereyga eebbe sida kitaabka quduuska ku qoran. kitaabka quduuska 2 qaybood ugu waaweyn waa ahdigii hore oo wax kasii sheegaya masiixa, iyo ahdigii cusub oo ah waxyaabihii masiixa laga sii sheegayo uu fulinayo. masiixa markuu dunida yimid uu fulinayay waxyaabihii laga sii sheegayay oo ilaahay nebiyadiisa hore ugu waxyooday inuu badbaadiyaha imaan doono, kaasoo u dembi dhaafi doono kuwii hore iyo kuwa dambeba intii asaga sugaysay inta aqbashay rabbiga. Marka masiixa ah markii uu dunida joogay waxyaabo badan uu sameeyey. masiixa wacdiye kelimahan wuxuu ahaa awooddiisa ayuu dadka barayay, awooddiisa inuu asaga yahay ereyga eebbe oo ilaahay ereygiisa iyo ilaahay inuu isku mid inuu yahay ayuu dadka barayay. masiixa wax walba oo ilaahay uu sameeyo ayuu dadka sameeyey uu tusiyey. ilaahay dadka dhintay asagaa noolaysiiyey, masiixa dadka uu soo noolaysiiyey. ilaahay dadka jiran asagaa caafiyo, masiixa dadka wuu caafin jiray. ilaahay dadka gaajaysan asagaa quudiyo dadka, masiixa dadka wuu quudiyey sida kitaabka injiilka ku qoran. ilaahay marka dhibaato walba asagaa xaliyo. masiixa marka wuxuu yimid inuu dhibaatooyinka aadanaha oo ku timid dembiga inuu xaliyo. asaga ayaana wuxuu noo noqday wanqalkii dembiyadeenna oo dhan. ilaahay hadiyaddaas ayuu dunida usoo diray. hadiyaddaas ilaahay anigii adigu usoo diray inta aqbashana ay ku badbaadayso ayaan waxaan idiin akhrinayaa hadalkii uu yiri markii uu dunida joogay. kitaabka quduuska kulli waa hadalka masiixa oo dhan. kitaabka quduuska oo dhan waa ilaahay ruuxdiisa ayuu u waxyooday inay hadalkiisa qoraan. nebiyadii uu waxyooday hadalkiisa inay qoraan. ilaahay wuxuu usoo waxyoonaya ruuxdiisa quduuska ayaa dadku u sheegaysa. waa isla ruuxii uu masiixa ka dhashay, ereyga eebbe. kitaabka marka quduuska ah wuxuu noo sheegayaa marka masiixa wacdigan buurta gaar ahaan, guud ahaan kitaabka quduuska wuxuu noo sheegayaa habkaan u noolaanayno iyo habka haddii aan u noolaan weyno habka ilaahay uu rabo waxa nagu dhici doona bilcagsiga, taasoo ay ugu weyn tahay dhimashada daa'imka ah, taasoo ah in ilaahay aan kala fogaano. marka ilaahay wuxuu noo sheegayaa, rabbiga masiixa ah wuxuu noo sheegayaa marka hab nololeedkeenna iyo cibaadada ilaahay aan u samaynayno sida ay tahay. wacdigan buurta marka wuxuu noogu sheegayaa hab nololeedka ay tahay dadkan ilaahay aaminsan inaan u soconno. arrintan marka soonka ku saabsan horey marka waxaan usoo marnay oo rabbigu noo sheegaya sadaqada qarsoon kitaabka ku sheego, iyo soonka salaada qarsoon. haddana marka rabbigu wuxuu noo sheegayaa soonka qarsoon. marka waan u akhrinayaa marka hore cutubka 6 injiilka Matayos, rasuul Matayos aayadda 16 ayaan kaga bilaabay ilaa 18. rabbigu wuxuu leeyahay, kolkaan sootaan ha aanina sida laguujilayaasha u foolqolobsan yihiin, waayo way isfool xumeeyaan si ay dadka ugu muuqdaan inay sooman yihiin. runtii waxaan idinku leeyahay abaalgudkoodii way heleen. laakiin adigu goortaad soontid madaxaaga saliid marso oo fool dhaqo ayuu leeyahay rabbiga, si aadan dadka ugu muuqan inaad sooman tahay, laakiin aad ugu muuqatid aabbahaaga meel qarsoon ku jira, oo aabbahaaga waxa qarsoon arka waa ku abaalgudi doonaa. rabbiga marka wuxuu noo sheegayaa 2 qaybood intaan arrintan marka ay ku saabsan tahay. rabbiga wuxuu noo sheegayaa habka hore oo dadka ilaahay aan aaminsanin, dadka lawajilayaasha rabbiga wuxuu ku sheegaa dadka wejina ilaahay ku caabudo, wejina sumcad ku raadiyo, oo dadka ugu sheega inay yihiin dad ilaahay. qaybta labaadna wuxuu noogu sheegayaa rabbiga habka ay tahay dadkeena ilaahay aaminsan inaan u dhaqanno oo ka duwan habkaas kale. marka wuxuu leeyahay dadka lawajilayaasha wejina dadka kula socdo, wejina ilaahay kula socdo, habkoodoo kale ha u dhaqmin uu leeyahay rabbiga sidaasuu leeyahay. marka wuxuu leeyahay way isfool xumeeyaan uu leeyahay kuwaas si ay dadka ugu muuqdaan inay sooman yihiin. rabbiga marka wuxuu leeyahay abaalgudkooda way heleen. waayo in la faaniyo rabeen oo la dhaho dadkaas waa dad ehelsoon ah oo ilaahay ka cabsado, abaalgudkooda way heleen leeyahay. laakiin annaga wuxuu leeyahay idinka laakiin goortaad soontaan, adigu goortaad soontay, rabbiga wuxuu la hadlayaa dadka asaga rumaysan. wuxuu leeyahay madaxaaga saliid marso oo wejigana dhaqo si aadan dadka ugu muuqan inaad sooman tahay, laakiin ilaahay aa ugu muuqatid.
guud ahaan marka ilaahay aabbahaaga ugu muuqatid le aabbahaaga meel qarsoon ku jira oo aabbahaaga waxa qarsoon alla kaga ku awalguudana ilaahay waa aabbaheena dadkan ilaahay ereygiisa masiixa aaminsan waayo masiixa sida kitaabku qoran in alle intii rumaysatay wuxuu siiyey amar ay ku noqdaan carruurta ilaah waayo marka aan ilaahay ereygiisa masiixa aqbalno oo aan aqbalno inuu isaga dembi dhaaf noo yahay ilaahay kafaar gudkii dembiga wuu noo sameeyey marka ilaahay markaas ayuu wuxuu ballan qaaday kitaabku u ballan qaaday ruuxiisa quduuska inuu qalbiyadan usoo diri doono isla kitaabka waxaa ku qoran inuu ruuxaas quduuska ah oo qalbiyadeena ku jiro uu dhawaaqaayo leeyahay aabbow sidaas ayaan ilaahay annaga aabbaheena ku yahay waayo ilaahay waa abuuraha wax walba ay ka yimaadeen waana aabbaheena na badbaadiyey annagoo kala dhimanay asaga oo dembigeenna uu naga qariyay asaga dembigeena dartiisa ereygiisa masiixa usoo diray dunida si uu inta rumaysatay ugu noqdo dembi dhaaf aynu ku helaan nolosha daa'ibka halka loo yaqaano jannada marka sida guud ahaan soonka waxa waaye ilaahay dartiis oo wax walba isaga dhaafno oo cuntadan ay ku jirto iyo cabitaanka ilaahay dartiis oo wax kasta isaga dhaaftid oo jirkaaga iyo naftaada ay doonayso oo ay ku jirto raashinka iyo biyaha xataa raashinka iyo biyaha dembi maahan laakiin raashinka iyo biyaha jirkeena u baahan inaan jirkeena xukunno oo ilaahay aan u noolaan asaga keliya ayaan waxaan isaga dhaafaynaa cuntada iyo cabitaanka xataa marka maalmo go-an waa micnaha dhihi kartaa maalmahaasaan rabaa inaan soomo ama 3 beri kitaabka way ku qoran tahay 3 beri in la soomay sida ku qoran kitaabkii Esther kitaabka la hayo kitaabka Daniel waxaa ku qoran nebi Daniel inuu soomay 21 beri markii uu toobadkeen u sameynayay dadkiisana ilaahay u baryayay way ku qoran tahay kitaabka 40 beri inuu soomay nebi Muuse oo markii oo buurtii Sinai ilaahay ugu soo dhiibayay 10 amar qaynuunadii ilaahay ugu soo dhiibayay buurtii Sinai reer bani Israa'iil ilaahay ugu soo dhiibayay nebi Muuse waxay ku qoran tahay kitaabka waxay ku qoran tahay baxniintii ay ku qoran tahay towreedkii nebi Muuse masiixa asagana si isla kitaabkan ku qoran cutubka 4 injiilkan Mataayo sida ku qoran masiixa intuusan hawshii asaga uu rabay inuu sameeyo uusan bilaabin markii uu 30 sano gaaray 40 beri iyo 40 maalmood ayuu meel cidlaa tegey ayuu ku soomay markii ibliisku isku dayay inuu jirrabo sidii aadan iyo xaawo ugu jirrabay ibliisku isku dayay inuu jirrabo ereyga eebe uu ku guulaysan waayay masiixa 40 maalmood iyo 40 habeen ayuu soomanaa markaasuu ibliiska waxyaabo rabay inuu ku jirrabo masiixa wuxuu uga hortagay ereyga ilaahay sidaas ayuu nahay masiixa macallin noogu yahay ayuuna wuxuu doonayaa inaan ibliisku uga hortagno ereyga eebe inaan uga hortagno hadalkiisa cutubka oo soonka faahfaahsan uu ku qoran yahay oo sida runta u fahmi kartid waa cutubkan waa kitaabkan Ishaaciya nebi Ishaaciya ilaahay waxyigu waxyooday nebi Ishaaciya cutubka 58 ayaa ku qoran soonka ilaahay dad badan baa soonka waxay arkaan bas raashinka iyo wixii la iska dhaafo laakiin wax kasta oo kale la sameeyo ilaahay marka aan kaga aqriyay kitaabkaas cutubka 58 Ishaaciya nebi Ishaaciya kitaabkiisa aayadda saddexaad ilaahay wuxuu leeyahay dadkii uu weydiinaya nebigu marka waxyiga isugu soo dhiibay wuxuu leeyahay waxay leeyihiin bal maxaan u soonnay oo aad u arki weyday bal maxaan naftayda u dhibnay oo aad u deeman weyday bal eega maalintii aad soontaan uu leeyahay eebbi waad iska raaxaysataan oo shaqaalihiin oo dhan waa dulantaan bal eega idinku waxaad u soontaan dirir iyo dood oo keliya iyo inaad feerkii sharnimada wax ku dhufataan maanta uma soontaan si codkiina xagga sare looga maqlo soonkii aan doortay ma waxaas oo kalaa ma maalin nin naftiisa dhibaba ma inuu madaxiisa sida coosdur u foorasho oo hoostiisa dhar jooniyada iyo dambasku goglaba waxaad tirahdaan waa soon iyo maalin rabbigu aqbali karo ilaahay marka wuxuu sheegayaa aayadda 6 soonka asaga uu rabo ilaahay wuxuu leeyahay sookanu maaha soonkii aan doortay in silsiladihii sharnimada la furo oo guntimihii harqoodka la dabciyo oo kuwa la dulmay la xoreeyo oo aad harqood kasta jebisaan soo maaha inaad kibistaada ka gaajaysan u goysid oo aad masaakiinta aan hoy lahayn gurigaaga soo gelisid oo markaad aragtid mid qaawan aad wax weysid oo aadan xigtadaada aad isku jirka tihiin ka dhuuman oo markaas ballanqaad u samaynaya ilaahay aayadda 8 oo markaas wuxuu leeyahay iftiinkaagu wuxuu usoo kaahi doonaa sida kaah waa beriga oo bogsiintaaduna dhaqso bay usoo bixi doontaa oo xaqnimadaaduna way ku hor socon doontaa oo ammaanta rabbiguna way ku daba socon doontaa markaasaad dhawaaqi doontaa oo rabbiguna waa kuu jawaabi doonaa waad u qayshan doontaa oo isna wuxuu ku oran doonaa waa ikan haddaad dhexdaada ka fogeysid harqoodka iyo farta fiiqideeda iyo hadlidda sharka oo haddaad ka gaajaysan quudkaaga siisid oo aad nafta dhibaataysan dherjisid markaas iftiinkaaga gudcur buu kasoo dhex kaahi doonaa oo madowgaaguna wuxuu noqon doonaa sida harcad oo kale
oo rabbiguna had iyo goorba wuu ku hogaamin doonaa oo iyadoo abaara ayuu naftaada dherjin doonaa lafahaagana wuu adkayn doonaa oo aadna waxaad noqon doontaa sida beer la waraabiyey iyo sida il biyaa oon innaba biyaheeda gurin ilaahay ballanqaadu halkan ku samaynayaa wuxuuna kaloo halkan ku samaynayaa ilaahay soonka asaga uu rabo ilaahay waxa waye sharta oo dhan inaan iska fogeyno inaan dadka dhibaataysan u gargaarno oo adiga maanta adiga sooman maanta qof dhibaataysan daarid inaadan ka dhuumanin oo qofkaas dhibaataysan aadan ag marin ilaahay wuxuu rabaa marka inaan asaga si nolosheenna waqtigaas aan soonka nigeysano ama toobadkeena ahaado ama ilaahay oon baryayno oo arrin masiibo aan u baryayno dadkeena ku dhacday ama wax annaga aan markaas ilaahay rabno inaan micnaha aan maarata ilaahay ugu dhowaano ilaahay wuxuu leeyahay marka waxaad samaynaysaan wax walba oo kale ka taga marka soonka waxa waaye inaan ilaahay gooni aan u noqono wax kale waxyaabahan dunida oo dhan aan iska dhaafno marka waqti go-an ayaa samaysanaysaa waqtigaas ayaa waxaa la joogaysaa ilaahay keliya la soconaysaa si nafteena iyo jirkeena aan u barno aan ugu hogaamino dishibliin aan ugu samayno inay ilaahay keliya waxyaabaha uu raalli ka yahay aan samayno marka rabbiga marka wuxuuna leeyahay markaas waxyaabahaas aad samaysaan ducadiina waa maqli doonaa iftiinkiina wuu soo kaci doonaa ballanqaadkaas oo ilaahay hadalkiisa run yahay ayuu ilaahay noo samaynaya soonka marka waa cibaadadaas noo dhoweynaysa ilaahay oo aan u samaynayn ilaahay dartiis aan u samaynayn keliya soonkaaga qof kale shaqo kuma lahan soon haddii lagugu qasbay ilaahay dartiis maahan haddii sutus aa u samaynaysin ilaahay dartiis maahan haddii aa waxyaabo kale aa u samaynaysin ilaahay dartiis maahan soonkuna ma ahan sida caadiga maalintii oo raashinka la iska dhaafo oo habeenkiina raashin badan la cuno kaas soon maahan soonka runtaa ilaahay uu doortay raashin keliya kuma saabsana soonka runka wuxuu ku saabsan yahay wax walba oon jecelnahay inaan iska dhaafno qof masiixi haddaad tahay oo maanta aad damacdid inaad soontid waxaad samayn kartaa waxyaabahan social media xataa waa iska dhaafaysaa telefishin ma fiirsanaysid idaacad ma dhegaysanaysid waxyaabaha jecesha oo dhan banooni haddaa fiirsid oo kale waa iska dhaafaysaa reero film haddaa tahay film fiirsid waa iska joojinaysaa waxaasoo dhan waa iska dhaafaysaa wax walba oo adduunyo quseeyo dhan waa iska dhigaysaa meel iska dhigaysaa si ilaahay aa wehelnimo ula qaadatid oo ilaahay waqti aa ula qaadatid 3 beri ha ahaato 4 beri ha ahaato 5 beri ha ahaato 6 beri ha ahaato 10 beri ha ahaato waqtigaas ayaa marka waxaad u qaas yeelaysaa ilaahay keliya ayaa waqtigaas u qaas yeelaysaa rabbiga masiixa soonka xataa wuxuu ku sheegay mar uu mucjisooyinka macnaha niman xirtiisa ay macnaha weydiiyeen mucjisooyinka macnaha wuxuu dhahay wax kale waxyaabahan kuma yimaadin oo dhaha soon iyo salaad badan maan soonkii salaada marka way isla socdaan mar walba waa ilaahay oo lasoo hoos dhigo salaada waa ilaahay wax la weydiisto soonkuna waa ilaahay oo looga tago wax kasto dartiis looga tago magaciisa dartiis oo ilaahay inaad nolosheena oo dhan aan ku ammaano marka kitaabka quduuska meelo badan ayay ku qoran tahay waxyaabaha soonka ku saabsan soonka marka waa cibaadadaas oo rabbiga marka wuxuuna leeyahay marka aad soomaysaan sida lawajiilayaashu ay u foolqolobsan yihiin oo kale ha samaynina sidaasoo kale ha ahaanina marka wuxuu leeyahay rabbiga soonkiina ikhlaas ha u ahaado ilaahay keliya ha u ahaado ikhlaas marka oo qof kalena ha u sheegin marka soonkuna maalin iyo habeen macnaha kuma xirna oo adiga ilaahay macnaha markaa caabudaysid qorax iyo bil macnaha maku kala sukeeyaan qoraxda anama caabudno bishana ma caabudno waxyaabaha qofka soonka waxa u samaynaysa waa ilaahay u samaynaysaa marka qoraxna kuma xirna bilna kuma xirna marka haddii kale waxyaabahaas waxay ku noqonayaan asnaamay ku noqonayaan caabudaysid ilaahayna markayna asaga keliya caabudno wax walbaan samaynayna isaga aan u samayno ayuu ilaahay rabaa marka soonkaas qarsoon ayaan intaasaan cashirkii aan idinkugu soo gabagabaynayaa waana ku mahadsantihiin macnaha inaad i dhegaysteen casharadan hadda wacdigan buurta cutubka toddobaad markaan dhameeyo casharo kale ayaan kitaabka idinkaga soo xuli doonaa oo faa'iidadiin leh oo rabbigana masiixana horta ugu inaa ogaataan waa masiixa diin maahan masiixa sida hore aan idinkugu sheegay masiixa waa badbaado waaye diin la qaadanayo maa masiixnimadu waa rabbiga masiixa ah ilaahay ereygiisa oo badbaadiyahaaga adiga u qirtid inaa adiga dembiilo tahay markaa qirtid ilaahay ayaad u imaanaysaa ilaahay waxaa leedahay ilaahu dembiile ayaan ahayd ma istaahila boqortooyadaada inaan galo anigoo dembi leh ereygaaga ay soo dirtay oo dembi dhaafka ii noqday waan aqbalay hadiyaddaas ay soo dirtay marka waa hadiyad ilaahay xaggiis ka timid masiixa markii hore dunida intaysan jirin ka hor wuu jiray ereyga eebba ayuu ahaa 2000 sano ka hor ayuu ilaahay dunida usoo diray ka hor dadkii ka horreeyey oo masiixa rumaysnaa oo sugayay way badbaadayaan oo ilaahay ereygiisa aqbalsanayo kuwa dambena way badbaadayaan ilaahay wuu sheegay ereygiisa kuwa rumeeyo inay badbaadeen
marka ereygaas eebe haddii aad rumaynin hal dembi keliya haddii uu kaa dhaco aadan iyo xaawo hal dembi ayaa ilaahay jannada uga soo saaray ilaahayna waa ilaahaas oo isku mid ah isbedelin ilaahay boqortooyadiisa ma geli karo qof hal dembi leh sidaas daraaddeed ayuu ilaahay inaan anaga iscaawin karin ayuu ogaa ilaahay sidaas ayuu noogu soo diray ereygiisa ereygaas ayaa dembiyadeena oo dhan dushiisa ilaahay uu saaray intuu jirkeenoo kale soo qaatay waa hadiidii ugu qalisanayd abid oo ilaahay uuna siiyo marka waa badbaadadaas ayaan kugu baaqaya haddii aadan masiixa ahayn oo aadan masiixa aqbalsanin marka masiixa inaad baratid ugu camalada shaqaysatay weligaa boqortooyada ilaahay ma ku geyn karaan sida camal aa shaqaysatay uusan kugu soo saari karin hal tin oo timeena ka mid ah camal shaqaysay oo iskugu soo saari karin ama hal ciji iskugu soo bixin karin waxa adeeg shaqaystay ama wax aadana ay sameeyeen aadanaha oo dhan maanta camalkooda hadday isku geeyaan hal far oo bini aadan ma samayn karaan ama hal ciji marka sidaas oo kale ilaahay boqortooyadiisa oo kasii weyn waxyaabaha muuqdo weligaa ma geli doontid waxa adeeg shaqaysatay kuma geli doontid waxaad ku geli doontaa haddii aad aqbashid oo rumaystid ereyga eebe oo masiixa ah meel aad tegtid kuma badbaadi kartid dembigaadana ma qaadi karo meel aad tegtid cibaada aad samaysayna dembigaada ma qaadi karo ilaahay keliya dembigaada qaadi karo ilaahayna wuu qaaday dembigaada wuxuu usoo diray ereygiisa ayuu ilaahay noo soo diray hadiidaas marka masiixa inaad ka baaran tegtid haddii aadan masiixi ahayn ama masiixa si qalada lagugu sheegay oo wax kale ama shirka lagugu sheegay masiixa waa ilaahay ereygiis ilaahay ereygiisana shirka maaha in la caabudo ilaahay hadalkiisa waa isku mid marka arrintaas inaad ku baraarugtid haddii hadalkaygu kusoo gaaro haddii aad masiixi tahay marka waxaan kugula talinayaa masiixnimada afka keliya maahan masiixnimada ama masiixnimada maahan inaad dadka keliya u sheegtid inaad masiixi tahay masiixnimada waa qalbiga ilaahay sida uu hadda noo sheegayo masiixa ereyga eebbe uuna leeyahay ee aabbaha waxa qarsoon arka ayaa ku abaalgudi doona ilaahay qalbigeena ayuu ogyahay inta aanan waxba samaynin ayuu ogyahay waxyaabahan ku fikirayn waayo asagaana sameeyey marka ilaahay ma khayaani karno haddii aad masiixi tahay ilaahay hadalkiisa waxaa ku qoran haddii hadalka ilaahay aan noqono kuwo maqla keliya oo aan yeelin nafsadeena aan khayaanina marka hadalka ilaahay haddaad masiixi tahay inaad kusii socotid oo hadalka ilaahay akhrisid oo qalbigaada oo dhan iyo naftaada oo dhan iyo caqligaada oo dhan aa ilaahay ka jeclaatid ayaan kugula talinaya oo dib aa uga soo noqotid waxyaabaha dembiyada aa ku dhex jirtid masiixnimadu maahan dembi oo lagu noolaado masiixa wuxuu dhahay kii dembi sameeya waa addoonkii dembiga sida kitaabka injiilka yooxana ku qoran masiixa wuxuu dhahay kii dembi sameeya waa addoonkii dembiga runtii wuxuu dhahay hadduusi wiilka uda xor ma tihin masiixa wuxuu dhahay runta ayaa garan doontaan runtiina way xoran doontaan marka ilaahay hadalkiisa waa run ilaahay ereygiisa ayaa marka kaa xorayn kara dembi marka dembiga inaan kasoo noqono oo ilaahay aa usoo noqotid qof masiixi haddaad tahay oo dembiga aa ku dhex jirtid oo kala qaybin iyo dhibaato iyo waxyaabahaas aad ku mashquulsan tahay inaad kasoo noqotid waayo ilaahay wuxuu leeyahay maanta waa maalintii badbaadinta maanta waa maalintii aan ku aqbalaya marka ilaahay inaad usoo noqotid oo si dhab ah masiixa u raacdid ayaan kugula talinayaa waxaan kusoo gabagabeynayaa kitaabka sharciga ku noqoshadiisa oo ah towreedkii nebi muuse cutubka 10aad aayadda 19 ayaa waxay leedahay maanta waxaan u yeerayaa samada iyo dhulka inay idinku markhaati furaan inaan idin hordhigay nolol iyo geeri iyo barako iyo inkaar haddaba sidaas daraaddeed nolosha doorta idinka iyo farcankiinaba aad noolaataan ilaahay ereygiisa saasaa ku qoran maanta aniga marka waxaan idin hordhigayaa nolol iyo geeri nolosha masiixa waa masiixa ayaa wuxuu yidhi aniga waxaan ahay jidka iyo runta iyo nolosha rabbiga wuxuu leeyahay maanta waxaan u yeerayaa samada iyo dhulka inay idinku markhaati furaan inaan idin hordhigay nolol iyo geeri iyo barako iyo inkaar haddaba sidaas daraaddeed nolosha doorta idinka iyo farcankiina aad noolaataan idinkoo rabbiga ilaahina jecel oo codkiisa adeecaya oo isaga sii xajista waayo isagu waa noloshiina iyo dherarka cimrigiin ilaahay wuxuu leeyahay asagaa nolosha ilaahay masiixa wuxuu leeyahay aniga ayaa nolosha oo rabbiga asagaa nolosha rabbiga marka wuxuuna leeyahay maanta doorashada adigay marka ay ku khusaysaa nolol iyo geeri ayaa ku hortaalo geerida waa ilaahay oo laga tago ilaahay oo inkirtid ilaahay oo ka tagta ma haddaad rabtid magaca ilaahay maanta la sheeg laakiin ilaaha runtaa oo ka tagtid oo ereygiisa aad dhagaa ka furaystid waa geerida ilaahay ereygiisa u timaadid masiixane waa nolosha asaga ayaa nolosha bixiya masiixa marka haddii aadan masiixi ahaynne waxaan kugula talinayaa inaad masiixa baratid oo asaga ay aqbashid waa mustaqbalkaaga haddii aad masiixi tahay oo qof galab aad iska tahay oo masiixi afkaaga ka tahayna waxaan kugula talinayaa inaad ilaahay usoo noqotid oo ilaahay ereygiisa akhrisid waayo ilaahay annaga wuxuu dhahay idiima dooranin oo dhahay aniga wasaqnimo idiima dooranin laakiin waxaa idin doortay quduusnaan inaad quduus ahaatid noloshan adduunkan waa iska gaaban tahay maalin walaa ka mid a waa ka tegaysaa adduunka
mustaqbalkaaga dambe oo markaad dunidan ka tagtid waa laba mid ay noqonaysaa boqortooyo abid ah sida ilaahay kitaabkiisa uu ku ballan qaaday iyo boqortooyada xaqa ah oo ilaahay oo abid ah iyo boqortooyada ibliiska oo abid ah meeshaas ah ku nooleed waa cadaabta iyo jannada marka maantay waxaan marka ku leeyahay noloshaas dooro ilaahay erigiisa nolosha oo dhan kitaabkan quduuska ku jirtaa kitaabka nolosha allah kitaabkan masiixa asagaa nolosha bixiyo marka intaasaan idinkaga tegayaa waana ku mahadsantiin ilaahay dhegaysatiin rabbiga qalbiyadiina ha iftiimiyo intaasaan idinkaga tegayaa walaalayaal rabbigaa idin barakeeyo dhammaantiin